indii marka imaatid hal shay iska jir waa turjumaanka Soomaalida maadaama dal Islaamid ay joogaan kuna hadli karin luqadda Hindiga qaarkood luqadda Ingiriiska aqoonin dhakhtarkii lama communicate garay karaan lama xiriiri karaan sidaas darteed turjumaan ayaa la qabsadaa laakiin dhibka jira waxay tahay turjumaanadaas qaar badan oo kamid ah kuma jirto Soomaalinimada iyo dad jaceylka iyo waliba damqashada iyo naxariista qof xanuunsan loo sameeyo waxa arkaysaa turjumaan qofka kula soo heshiiya qarashkiisana ka qaad ay tahay haddana dhakhtar oo kula jiro heshiis u geynaya laga yaabo xataa dhakhtarkaas inuusan ahayn dhakhtarkii xanuunkan daaweyn lahaa ama dhakhtarkii ugu habboonaa ee qofkan qaabil lahaa xataa qaarkood kuwa aan dabeecad lahayn oo xataa bukaanka u dul qaadan karin oo xataa su'aalaha inay uga jawaabo ogolayn ay u geeyaan sidaas darteed madax ayay ka xisaabsadaan oo percentage ay ku leeyihiin wax alaala wixii dhakhtarku qarash soo gala qofkaas laba meel wax ka dilanaya mar qofkii Soomaaliga walaalkiisa uu leeshiyay oo lacag turjumaan ka qaatay mar labaad madaxiisa ayuu ku gorgortamaya turjumaanada ku nool Hyderabad Hindiya waxaan leeyahay u dhimriye walaalihiina waa laga fiican yahay waxyaabaha qaar qof walaalka xanuunsan in lacag kor sameeyo waa la shaqeynaysaa maalin walba soo raacaysaa waa isku fahanay oo lacagtii waa kula heshiis inta ugu shaqeynay mid kale oo ah hadhowna dhakhtarku ku dalacaya macnaheedu ma aha dhakhtarku inuu tiisiina ee lacagta baaritaanka iyo shayada iyo waxa uu rabo iyo qaliinka ku dalacanaya si percentage qofka Soomaaliga ee turjumaanka u gooyo marka hadaa marka horeba lacag laan ugu sameynaysiin lacagta ka qadan lahayd asaga kula heshiiya ka daaya lacagta kale ee ku dul shaqeysan. Assalamu alaykum.